waxaanu cambaaraynaynaa oo ka soo horjeednaa haddaanu xisbiga cadaaladda iyo daryeelka nahay wax wal oo xorriyatul qowlka wax u dhimaya waxaynu ogeen hubaal iyo tacaddigii ku dhacay iyo ciidankii intuu soo galay qaarna dhaawacay qaarna ay dilka ku sigteen si wixii loo geystay iyo xukunkii maxkamadda ku dhacay iyo inuu jaraa'idka xidhan yahay waxaa ka dambeysay arrimo kale oo fara badan oo saxaafadda loo geysto dhibaato oo saxufiyiin la xidhay oo fara badan tan maanta ugu dambaysa waxa weeyaan waa in jariidada la yiraahdo haatuf oo tacaddiga iyo dhibaatada ku dhacday shacab weynaha iyo adduunyadiiba ay ka qaylinayaan waxaynu ognahay inuu adduunyadii oo dhan ka soo qaylinayso dhaga adayga xukuumaddana aad arkaysaan xukuumaddana ay ahayd waxa loo qorayo ee dhaliila in iyadu si degdeg uga jawaabto maantana aanay waxba ku qaadanayn lagana dhagalaayay waxa weeyaan waa cadaalad darradu waa laba cadaalad darradu waa mid aanad u badheedhin oo ay ka tahay waxaanad garanayn oo ma garanaysaa muhiimala iyo mid aad u badheedhay tani waxa weeyaan waa cadaalad darro loo badheedhay oo cid wax ka qabata oo hogaankii dalka ugu sareeyay uu ogol yahay in cadaalad darradaasi wadanka ka dhacdo tii uu ku hagi lahaa wanaaga iyo sharafta iyo karaamada iyo sumcadiisuna ay ku xidhnayd sidoo wadanka u hago iyo wanaagu dalka ku hago waxaan imikana ka codsanaynaa haddaanu nahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka in xorriyadiisa loo soo celiyo labada jariidadoodba xorriyadooda loo soo celiyo hoggaanka jariidada haatufna loo soo celiyo xorriyadiisa